بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada macahadka iqra institute of technology. saakay waxaan qaadan doonaa cashar ka mid ah casharadeenii noo soo socday koorsiga personal development training ama personal development skills. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa knowing yourself, barashada naftaada ayaan ku qaadan doonaa wax lagu magacaabo. cashar walba waxaa hordhac u ah, erey ayaa hordhac u ah oo laga bilaabo casharka marka oo midaasi oo marka inoo sahlaysa ama inoo soo dhaweynaysa fahamka casharka aanu qaadanayno maanta. marka sida la ajliga maanta waxaan qaadan doonaa knowing yourself, barashada naftaada ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. knowing yourself waa waxaa lagu leeyahay knowing yourself is the beginning of all wisdom. barashada naftaadu waa halka dhammaan xigmadu ka bilaabato. inaad barato naftaada waa halka ka bilaabato xigmadu weeyaan ayaa lagu leeyahay. marka waana hadal oo sax ah weeyaan. marka inaad barato naftaada waa shay iyo aad muhiim u ah weeyaan. marka sida la ajligeed xitaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka waxaa inoogu sheegayaa inoogu leeyahay marka wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira. aayadahaasi qur-aanka kariimka ah marka waxay inoo sheegayaan marka inay muhiim tahay ama ay tahay waajib in qofka bini aadamka ahi uu naftiisa uu barto, marka uu fiiriyo inay marka cibro qaadasho iyo ay ku jirto. marka sida la ajligeed marka inaad barato naftaadi waa halka ay ka bilaabato xigmada weeyaan. marka qofka inuu barto naftiisa muhiim ayay aad iyo aad u tahay. marka maadaama marka bini aadamku uu yahay marka qof alle karaameeyey uu yahay, sida alle subxaana wa tacaala qur-aankiisa baa inooga sheegay walaqad karamna bani aadama uu leeyahay weeyaan. marka intaas oo dhan marka adigoo fiirinaya marka ka duulaya waad inaad barataa naftaada marka ugu horeyso. marka haddii aan socono qeybtani waxaa lagu leeyahay marka ugu horeysa waa personality, shakhsiyadda. shakhsiyaddu marka waa isku darka astaamaha aad kaga duwan tahay qof kasta weeyaan. marka tusaale ahaan marka qofka magaciisa ma doorto, sidoo kale ma doorto qowmiyadda uu ka soo jeedo ama qolada uu ka soo jeedo ma doorto qofka, sidoo kale ma doorto qaaradiisa ama halka uu ku nool yahay asiga ma doorto qofka. dhammaan marka waxyaabahaasi marka waxaa la yiraahdaa shakhsiyadda qofka. marka balse waxaa jira marka shakhsiyad oo adigu doorato oo adigu samaysato, taas oo ku cadaynaysa marka qofka aad tahay. haddaba shakhsiyadaadu waa isku darka astaamahooda oo kala duwan weeyaan. marka kow, haddaba shakhsiyadaasi maxaa aan ku ogaanaya marka kow, haddaba shakhsiyadaada waxaa sameynaya waa behaviorkaagi. marka habdhaqankaasi ama waxaa ka mid a marka ugu horeeya waa kow behaviorkaagi weeyaan, habdhaqankaagi weeyaan. marka habdhaqanka aad leedahay weeyaan ama habdhaqanka qofka uu leeyahay weeyaan. marka astaamahaasi sidoo kale waxaa ka mid a marka thoughtska ayaa ka mid ah, afkaarta ayaa ka mid ah ama afkaarteena ayaa ka mid ah ama afkaarta qofka ayaa ka mid ah. marka kuley ayaguna qeybahan iyagoo faahfaahsan waxaan ku arki doonaa marka casharada soo socda insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa ka mid ah marka feelingska ayaa ka mid ah, dareemaha ayaa ka mid ah, qofka dareemihiisa ayaa ka mid ah, waxyaabaha siga uu dareemo qofka. waxaa weeyaan sababtoo ah marka qof walba qofka kale dareenka uu leeyahay marka uu ka duwan yahay ama uu ka bedelan yahay ama uu ka gedisan yahay. marka dadka isku dareen maahan. marka qof walba qofka kale waa uu ka bedelan yahay. marka waa sunnada alla weeyaan. marka midaasina marka dareenkaagii dareen noocee ah weeyaan. marka parties of personality halkan iyaduna waxay tahay marka qeybaha ay ka kooban tahay marka qofka
shakhsiyadiisa qeybaha ay ka kooban tahay weeyaan. halkan iyaduna sidoo kale waxaa ka mid ah marka qeybahaasi weakness ayaa ka mid ah, iimooyinkaaga ayaa ka mid ah, ama iimooyinka qofka uu leeyahay ayaa ka mid ah. weaknessku waa dhanka aad adigu ka tahay daciifka aad ka tahay ama aad ka liidato weeyaan. qofka waxaa laga rabaa marka in uu garan karo ama uu garanayo, uusan iska hindhatirin oo uusan marka iska dhigin qof aan ogeyn meesha uu ka liito iyo meesha uu ka fiican yahay, inuu kala garan karo qofka waa muhiim iyaduna sidoo kale. marka weaknesskaagi waad inaad garan kartaa ama aad qirato waa muhiim. haddii aad qirato weaknesskaagi halka aad daciifka aad ka tahay ama aad gaabiska kaaga jiro, waxay tahay marka waxaad ogaatay qaladkaagi ayaad ogaatay, ama sidoo kale waxaad ogaatay marka xanuunkaagi ayaad ogaatay. marka xanuunkaagi haddaad garatana daawadiisa way fududahay marka, balse haddii aadan ogeyn xanuunkaagi marka midaasi ayaa ah midda dhibaatada ah. marka sidoo kale waxaa ka mid ah marka strength ayaa ka mid ah. strength ayaa ka mid ah waa wanaagaaga, waad inaad garan kartaa sidoo kale wanaagaaga, inaad garan karto qofka wanaagiisa inuu garan karo ayaa ka mid ah. marka sidoo kale wanaagaaga haddii aad garato waxay la micno tahay marka iyaduna sidoo kale inaad garan karto sidoo kale waxyaabaha aad adigu weaknesskaaga ah aad daciifku aad ku tahay inaad garan karto ayaa ku soo baxaysa. marka sidoo kale waxaa ka mid ah marka passionka ayaa ka mid ah qofka waxyaabaha uu jecel yahay, inaad garan karto waxyaabaha aad jeceshahay ayaa ka mid ah. marka qofba marka wuxuu leeyahay marka hobby ayuu leeyahay, qof walba wuxuu leeyahay marka dareen ayuu leeyahay. marka waad inaad garan kartaa waxyaabaha aad jeceshahay aad xiiseynayso, sababtoo ah qofka waxa asiga uu jecel yahay qalbigiisa la dhacsan ayuu mar walba wax uu ka keenaa. marka haddii ay tahay waxbarasho, haddii ay tahay farsamad gacanta laga sameeyo, haddii ay tahay marka waxyaaba fara badan, marka qofba meesha asiga uu jecel yahay hobbigiisa ah uu ku faraxsan yahay meeshaasi ayuu wax ka keeni karaa. marka sidoo kale waxaa ka mid ah marka feris ayaa ka mid ah, cabsida ayaa ka mid ah, waxyaabaha ku cabsigeliya waad inaad garan kartaa ayaa ka mid ah iyaduna sidoo kale. waxaa kaloo ka mid ah likes and dislikes ayaa ka mid ah marka waxyaabaha personalitiska sababa. marka questions halkan marka waxaa inoo yaala su-aalo ayaa inoo yaala. su-aasha ugu horeysa waxaa lagu leeyahay what have you been biggest wins in last 12 months? maxay tahay waxyaabaha ugu weyn oo aad ku guuleysatay 12 bilood ee lasoo dhaafay? macnaheedu ay tahay sanadkii lasoo dhaafay. sanadkii lasoo dhaafay maxay tahay marka waxyaabaha ugu weyn oo aad ku guuleysatay maxay ahayd? marka soo qor halkan jawaabtaadii ku soo qor. sidoo kale su-aasha labaad laina weydiinayo ama lagu weydiinayo adigoo ardayga waxay tahay what have you been your biggest frustration in the last weeks? maxay tahay burburka ugu weyn? frustration waa burbur. maxay tahay burburka ugu weyn aad la kulantay ama ku soo wajahay ama kugu dhacay in the last weeks? isbuucii lasoo dhaafay. isbuucii lasoo dhaafay ama wiigii lasoo dhaafay burburka ugu weyn ama jabka ugu weyn ama khasaaraha ku soo gaaray maxay tahay? marka halkan ku soo qorayduna jawaabteeda sidoo kale. su-aasha saddexaad waxay tahay marka what is your strength and weakness? maxay tahay awoodaada iyo sidoo kale maxay tahay dhanka iyo weaknesskaaga ama dhanka iyo aad daciifka aad ka tahay maxay yihiin? marka waxaad soo qortaa marka dhanka aad adigu awoodaada aad ka leedahay iyo dhanka aad adigu aad ka tahay marka daciif aad ka tahay soo qor. sababtoo ah haddii aad kala garato labadani qodob aad iyo aad ay muhiim u yihiin. marka haddii aad kala garato labadani qodob waxay tahay marka waxaad garatay in badan waxyaabaha adigu aad tahay ama qofka adiga aad tahay ayaad garatay. micnaheedu waa sidaasi. marka waxaan ka rajaynaynaa ardayda inay usoo qoraan si dhab ah oo ay daacadnimo ku jirto inay uga soo jawaabaan su-aalahani ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. marka waxaan rajaynayaa casharka maanta inaan isla fahnay. marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.